dhammaan martasharafta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo caalamka naga daawanaysaan iyo dhammaan martasharafta fanaaniinta qiimaha badan ee ku sugan hotelkan quruxda badan oona caawa ku sugannahay Dolphin Hotel oo ka mid ah hoteelada ugu caalamsan ama ugu casriyeysan ee magaalada Muqdisho ku yaala ayadoo caawa barnaamijkan noo fududeeyeen barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in aan ummadda Soomaaliyeed ee malaayiinta ah kuwa gudaha ku jooga iyo kuwa dibaddaba in aan kula dabaaldegno munaasabadda sanadka cusub 2018 ayadoo aan soo gabagabeynay sanadkii 2017 ayadoo aan ognahay in sanadkaasi waayihiisa iyo waqtigiisaba intaba uu qaatay oo aan ognahay dad badan oo anaga naga mid ah in farxadi ay ku soo dhaaftay inkastoo aan ognahay marxalado badan oo kala gudsan aan soo marnay balse caawa ma jeclin inaan ma aragtay intii 2017 nagala tagtay oo dhibaato ah inaan ka fikirno balse waxaan ilaahay ka baryaynaa in sanadkan cusub waa cusub uu u noqdo dalka Soomaaliya iyo ummadda islaamka meel kasta ay joogaan maadaama aan hadda ku socono xaalad ka duwan xaaladihii aan soo marnay muddooyinkii hore ama sanadihii la soo dhaafay caawa waxaa farxadii ah inaan ku suganahay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya xaruntii midnimada Soomaaliyeed meesha ay ummadda Soomaaliyeed ka hana qaaday oo ay midnimadeeda ka bilaabatay waxaa kaloo caawa farxad kale ah in caawa ay joogaan martasharaf kala duwan oo qiimo ku leh qaarkood dalkii muddo aad u fara badan ka maqnaa balse nasiibku caawa u saamaxay inay dalkii dib ugu soo noqdaan isla markaasna barnaamijkan farxadda badan ay gala soo qayb galaan anoo hadalka idinku dheeraynin rabana fanaaniinta faraha badan oo meesha jooga inaan ka faa'iidaysto ayaa caawa barnaamijkan waxaa garabkayga taagan caawa Xamdi Cabdullaahi oo ka mid ah wariyaasha TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo barnaamijkan ila daadinayso ayadoo aan jecelnahay inta aan Xamdi microphone ku soo dhaweynin in ay ma aragtay oo hadalkeeda qaadan in ay xasuusiyo waxa inta ku sugan fanaaniin aad u fara badan iyo mas'uuliyiin ayadoo aan jeclahay ugu horeyntii in ay caawa aan jeclaynba aniga Xamdiba maadaama ay jirto shakhsi aan ognahay inay ahayd shakhsigii ugu horeeyay ee dumar ah ka hadashay raadiyii Muqdisho oo runtii ahaa ma aragtay meesha ummadda Soomaaliyeed laga hayo gabadhaas oo aan jecelnahay maamo Luul Xasan Luula oo Canada ka imaatay inaan markii ugu horeyso ku soo dhaweyno si ay 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo ay anaga inta noo soo istaagto idinna aan ma aragtay ka codsano inay ma aragtay barnaamijka noo furto aada ku soo dhaweynayna maama Luul aada ku soo dhaweynayna gabadha ugu horeysay oo afka ma sha Allah inay ugu soo dhaweysan gabar wariye ah soo dhaweynaya aadaan ugu faraxsanahay gabadhii ugu horeysay ee radio Muqdisho ka hadasho ayay ahayd ama barnaamij ha qabata ama war ha akhriso qofka ugu horeysay ee gabar wariye ah oo Muqdisho iska dhaafay Soomaaliya Afrika Soomaaliya looga tirsaday ahayd aad ugu faraxsanaa maanta inaan garabkaaga ka hadlayo oo barnaamijkayga kugu soo dhaweynaa gabadhaydii maceed Allah caawa miyaaba farxadayda lama soo koobi kara iyo dareenkayga wax badan baan TV-ga idinka daawanayay wariyaasha codadkooda aan sida intaan u dhageystaan dhihi jiray Allah kuwaan bal arag bal sida ay isugu dhiibahayaan aniga ya studio raadi Muqdisho na kaliya halkan waa codkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya saacada geeska Afrika haatan waxa ay tilmaamaysaa 15 daqiiqo warkii ku soo dhawaada mise gabdho kala boobahayo wiilal kala boobahayo warka sharafka talantaalida TV-ga qaranka aad baan qalbigayga ugu farxa waa ku seexan jiray habeenkii wax kale ma aan daawan jirin haddaba caawana waxaa nasiib iile wiisho inaan wada joogno aniga iyo adiga dalkii Soomaaliya Muqdisho oo muddo dheer aan ka maqneen xiisaha aan u qabo la soo koobi karin
waxa aan sugayay aan raadinayo caawa inaan halkaan joogo aan welita ka sii hadlaayo hortooda wariyaashii fanaaniintii dalka hooyo dalkaygii aan aad u jeclahay danta igu soo celisayna aad garan kartaan isbedelaada quruxda badan iyo dowladnimada dareenkeeda oo aan soo dareennay hadda intayada timidbo oo aanu u nimid oo aanu jecelnahay halkaasna wacdigelinta iyo dhiirigelinta iyo dadaalka inaan ka sii wado ilaa ilama lahaba inaan noqon doono sidaa aan jecelnahay dad badan raadiga muqdisho ayay ka dhegeysan jireen caawa waxaan si u yeelanay oo annaga farxad goonin oo aan alxamdulilah inaa caawa dhexdeeda ku jirto horta markuu horeysan sanad wanaagsan maadaama aan sanad cusub galnay 2018 aan ka gudubnay 2017 muddo badan ayaa dalka ka maqnay magaalada muqdisho ayaa joogtaa dareenkaaga adoo cabirayso maadaama aad in badan qurbaha ku raagtay baraf badan aad ka soo baxday diyaaradda ugu horeysay marka cagaha soo dhigatay aadan cadda international airport siduu qalbigaagu ahayo lagama hadli karo inaan miraayada ka dhex baxo ama sugi kari weyna anigay Faaduma Cali Jaamac Nagruma saaxiibaday garabkayga ahayd wiligeen baanu kala harin xagga fankana haddana iyo riwaayadana waan ku dheereen jiray ogow waana isla dhignay safar badanna waan isla galnay Faaduma diyaaradda ma sugi karnee hadda daaqada ka boodana tan aan ka boodno aan dabaalano oo airportka aadan Cabdulla Ismaan sida aan ugu degno hadda ciyaar ma aha halkaasi lagama hadli karo taasi lagama hadli karo nasiibka yagase ilaahay baa noo kasay ayadoo sanadkii tagay 2007 haddana soo galaysa 2018 ayadoo ay tahay dabaaldegii sanadkii cusbaa bal nasiibkayga dabaaldegaasi ka waran qeyrkanu inuu soo dabaaldego dowladnimadanu soo dabaaldegto sidaa u soo socoto halka ay tagaan kuwa kalena ay dib u noqdaan aad baad u mahadsan tahay yaad kaga faa'iidaysanaysaa maadaama aan jecelnahay inaan barnaamijkeena sii gudagalno annagoo aan ka daalaynin inaan barnaamijyo kale isku aragno ballan qaadi doonana insha allah in aan waayadaadii iyo raadi muqdisho ka sheekaysan doono barnaamijyo live-na kugu casuumi doono ayaa waxaan jeclahay bal waan soo istaagtay meesha dad badan baad ka soo tagtay Canada iyo North America Lul Cali Xasan Lul Faaduma Nagruma oo ayadana ma aragtay muddo badan halkaas ku nooleed oo ayadana aan jecelnahay inaan dhawaan soo istaajin doono صح dareenka maxaad u diraysaa fariin yaa si jecesha inaa halkan ka salaanta haddana fursad ugu horeysa ku siin horta aad baa u mahadsan tahay walaalkeeyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ma ahan Canada kaliya waxa aan u dirahayaa dalkii hooyo waa dalkeenii quruxdiisa udgoonka carafta hurdada macaan nabadda taala soo gaara barafkii waan ku dhamaanay aanu dalkii u soo noqono marka ugu horeyso dalkii nabad baa taal nabad ayaa taalo waana aad baan ugu faraxsanahay dhamaantiina waxaan idin leeyahay horto sanad wanaagsan meel kasto aad joogtaan Soomaaliyeey saad u dhantihiin halka wadankiini ku haay dalkiini ku haay dal noomaha dalka yagi sida aan u difaacan lahayn sidii aan midnimada Soomaaliyeed u noqon lahayn aan ku dadaalno laakiin wax yar baan rabaa inaan dhaho dhalinyarada Soomaaliyeed sida dadaalkooda wada jirka ay muujiyeen anagu TV-ga saas baan u fiirsanayay marna sidaas baan u ooynaa marna sidaan aan u ooynaa marna sidaan baan u qosolnaa goormaanu tagi doonaa ugu dambeyn aad baan u mahadsan tahay kaama daaleyno aad baan ku xiisaynaynaa barnaamijkii Imil Khishi Madadaali ayaa daadahin jirtay adoo ma aragtay wariyaal badan kula daadinayaan barnaamijkaasna badanaa waxaa lagu soo bandhigi jiray heesaha ugu ma aragtay horeeyo markaasi ama socdo markaasi ay fanaaniintu soo saaraan caawa barnaamijku waa barnaamij farxadeed dabaaldeg مثلنا هاي أطلعان مسلان هذا هس ما دام أبرام كذا ديجي سوى ما دنك هسا هاي وهسا هاي هري وأفرانين تجعله بالوحن عاو
وارميسيدي وهكاهرو waaye dhankaas ka rogo laba saar anigu horta riwaayadaha xamarka ayaan atriijo ka ahaan jiray aan wax ku sheego marka hal ku qarsaraa bal xamar weyna tag oo soo warayso hadaba xali badan ku barye bunalay ma soo dubin baadiya barid ma cuntoy buusha la siiya عجيب aad ayaad u mahadsantahay waan kugu mahadcelinaynaa wax yar aan kaa galo halkaas waxaa iiga muuqato walaashay Faaduma Cali Jaamac Nagruma xagga heeska xagga matalaada xagga gabayada xagga xoogga dalka Soomaaliyeed gabdhihii ugu horeysay ayaa halkaa iiga muuqatay degdeg halka iigu keen waa kaas ماما فاطمة علي نجومة واتهاي dadka marti sharafta inta fadhiya dhamaantood maama Faadma Nagruma soo dhaweynayna inagu ku soo dhaweynayna warbaahintii qaranka magaaladii Muqdisho caasimadii dalka dhamaanteed anaga ku soo dhaweynayna waxa ku soo dhaweynayna dalkii hooyo maamo marti sharafta aad ku badan ee ku afadhiso waxay iskugu jiraan fanaaniin waa u jeedaa fartuun birimo qurba joog ahayd cali dhaanto qurba joog ahaa hoodan Afrika oo iyadana qurba joogta kamid ahayd dhamaan waa u jeedaa fanaaniintii kale taxamar waa kuwan kooxdii waa bari qaran ee ka tirsan dhamaantood adiga ku badan maadaama curfi meesha joogo yaraan ma hadli karo samaan aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad ayaan waxaan leeyahay intiinaan meesha joogta iyo inta la daawanaysaba haddaanu nahay bahda ama ha heeso ama ha tumo ama ha hadlo ama ayaa ha dheelo isboortiga iyo fanaaninta waa isku hal marka kulligood waxaan leeyahay waxaan dhihi doono maaha laakiin waa sida cusub waxaa lagu tasada wanaagsan ilaahay Soomaali nabadan maanta aragna allaha noo sii badiyo waxaan leeyahay meel ay joogaanba fanaaniinta dalka iyo ciyaartooyda dalka waxaan leeyahay la'aantiin abaar waaye waxaa tihiin hanuuniyayaasha hagayaasha isku soo dhaweynta dadka ayaa tihiin meeshaa kasii wada annaguna waa idin daawanaynaa laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama aad gabadhii igu soo dhaweysa microfonka ayna tahay waxa loo dabaaldegayo maalintii sanadka cusub waxaa leeyahay kan hore hardidiisii kan soo socdana hardidiisa allahna dhaafiyo kan tegayana haraantidiisa allahna dhaafiyo labada sano oo hadda isweydaarsanaysa sharaf bayna ii tahay inaan sanad cusub aan joogo magaalada Muqdisho oo jeclaa oo aan leeyahay weliba Muqdisho حال هدي أم حميني مقدسي حال وحوي الآن كم تشوف كرمان لوران كم مركا وحان وضنا برنامج كبدار الكعار كفرية أو برنامج ما وضنا لنا هو يوم الأرز بايرس ولا أبوالينا وحان وضنا هواي ليرادو هم يرجو رجل واحد أنا يرجو واحد كشيء يبعثني ما تقدر تترك كذا عليه markaa kabacdi markaan arkay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ayagu dalka iska ilaa anagu waa ka tegaynaa anagu waa ka duqoonay taariikh baarayse anagu waxba hadda nooma harin laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed idinkaa dalka iska ilmihiina iska idinkaa ku badnaan doona marka waxaan leeyahay meel joogaa dhalinyarada Soomaaliyeed hanolaato anaguna waxaanu nahay dhalinyarada cuslaatay oo jecel nabadda وحوي نبض يا نور بان ودناي سومالي نبض يا نور سومالي سنة مناسبة أنا بعد ما أصلت هاي ما بنتهمه تطبطن مركز السادس وحمل سوريا حسوس باجستو ومضي وحلاقيها مع شركة عرتا لبضكم وحسوسا أدو جوتي جبوتي إن أدخادي هيس قيمة بدن أو أهاي بارون قرية magaalada Muqdisho ay joogtaa sanad cusub ma isleedahay heesaasi caawa inaan ku daanfurno way ku fiicantay
وهبيكي ومين هاي waxaan filayaa in maaragtay heestaasi inta aan maaragtay diyaarinin maamul Nkrumah su'aal aan weydiiyey Lula Xasan Lula ayaa jirto inaan ku weydiiyo maanta maadaama aad soo gaartay magaalada Muqdisho muddo ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in aad qabtay sawir ka duwan sawirro maaragtay aad maanta ku aragtay bal sawirka aad wada haddii aad cabirto kan magaalada Muqdisho aad ugu imaatana haddii aad caawa sheegto riyadii rajada qabay waxay ahayd xamar seebu iyo xamar seebu akaan doona xamar musawirkii hore oo ka haystay musawirka qurxoon ayaan arkay markaan hadda jidka soo marayna waxaa arkay dadkii maqaayadii oo furan dukaamadii oo furan jidadkii oo furan oo la wada marayo marka waxa weeye waan fiirsanaa inkastoo la idinka maqannahay noloshayada iyo indhaha iyagu xamar bay ku jiraan TV-gaasaa uga fadhinaa waxaan mahad weyn u celinayaa oo leeyahay ilaahay uga bilow Soomaaliya labada dowladda Soomaaliyeed aad iyo aad iyo aad baan leeyahay hore u wada mahad gaar ah waxaan u celinayaa horta marwadii noo ogolaatay ilaahay baa noo ogolaaday inay nagu casuubto dalka markay aragtay qiimaha aan leenahay xagga suugaanta ilaahay waxaan leeyahay sanad wanaagsan مدام سيدنا معلم وعليه مدود المدخويلة أنا ورات هجيتو وحال محد ونغير بلد بسوء كبات أما كفر سنتين قدوميها مقالة تورنتو كان لي هذا حمد لكن لواتر يتدور سراي مقالة حمد قدومية هذا أون أرجنو قول كبراني تابع عبدي وحالي تابع هاي كامري وهاي سواسي قابلي أولي هذا متعلم قاد أذاقيو تابع قدوش علينا قدوش سيدتي والقرحي وحاسوا أرني بلد وحاسوا أرني نظم وحاسوا أرني ايربورتي عبد العثمان أنا ما أقول وحنكو أبايو قليل وسكر صوري تبوس قليل أدوك بالله من هؤلاء والله شان قابلي وين هراء وصعنا هراء وصعته هذا ما سنتهي دوريا شقيمة بدنو نلا دعوة هستي أقول لك شيء إن الكل تبادلته ما دام أي تهاي مركي هو رئيسي أي مقالة مقدشو أي كهيستو بدو كبدن صدر سنوات سنة وصلنا أي تهاي نلا دعوة هستي دي قيمة بدني دبا لو نقرأ أي فنانة عنك فاضل علي نكرمه balheesta inta la gaaray waxya ikaniya faarmo saaka subxaana waan heesayaay sanawali bahoyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay
sidoo kale adigana ka war waxaa sharafiya inaan caawa aan intii haddaan amrayid alxamdulilah wahagaag faadumo taariikho badan baa leedahay adigaba la soo koobi karay safaradii badna ayaan isku raacnay kamaba hadli karo dhan kastaba ka rogo laba saac haddaba waa heesteennii meesha haynooga socoto wakuka haye waxaa shakaarka baby primo oo ah gabar reer korobta ah oo aan jecelahay oo anigu afkaka ku soo dhaweeyey primo weligay ma hor istaagin inaan TV-ga ka fiirsado marka reerxamarku anu reerxamar rawaanay waxaan dhihi jirnay cimrigaa raaga geel dhalaayas calidhaanta halkaana ku salaamay calidhaanto aad baan ugu faraxsan inaan ku arko wiilasha yaryar ee aan ku faano ee aan dhahno waa wiilasha lagu faano ka mid yahay waxaa joogta gabadha aan jeclahay oo xoogga iga hormartay waa caashakiin oo aan jeclahay oo leeyahay caashakiin markaad xoogga u heesaysid baa idhaahda yaa ceejiye maxaa jira booska igima heysata waxaa joogta gabadh waa beri ah oo anaga nagu culus oo dadka iyagii hore ah kaanad ayaan oo gabdhaha iyagii hore oo waa beri ah waxaa joogta gabadha yarkaa oo quruxda badan oo aad hadda noo sheegteen brimo masrixi ugu horreeyey oo ay soo fuushay aan isdhaho macalimadeedii baan ahay masrixi ugu horreysay oo ay brimo fuushay anaa agtaagnaa waxaan ku faraxsanahay siday actionkii u qaadatay iyo waanadii aan siinay oy u soo baxday waxaan ku leeyahay congratulation baby waxaa tahay gabdhaha iyaga oo ku faano oo yararkaa oo soo baxay marka inta aanan u gelinin aan dhaha horta dib baa loo wahayaa bilowgeediina horaska ayada qaadi jirtay
حارسون إنا دي بلغون نغان وبحنا حارسون ضرورة الكلتا نكي نعبان وغين ضرورة الكلتا نكي نعبان وغين دبلو نغونيا ولا نغونيا دبلو نغونيا ولا نغونيا ضرورة الكلتا قفكي نعبان وغين ضرورة الكلتا قفكي نعبان وغين دبلو نغونيا ولا نغونيا دبلو نغونيا ولا نغونيا تركيب لاغو نغونيا iyada way fiican tahay nimcaysaada lisa niyada way fiican tahay nimcaysaada lisa dhaxalkii waa naga dulkacayo waxaa noo baaqaynama dhaxalkii waa naga dulkacayo waxaa noo baaqaynamade dibba loo noqonaya wala noqonaya dibba loo noqonaya wala noqonaya dhaxalkii waa naga dulkacayo waxaa noo baaqaynama dhaxalkii waa naga dulkacayo waxaa noo baaqaynamade dibba loo noqonaya wala noqonaya dibba loo noqonaya wala noqonaya dalkiiba lagu noqonaya nabarkii waa noo bogsaday nacaybshihii waa la tiray nabarkii waa noo bogsaday nacaybshihii waa la tiray shidhaanka la naarayaayo qalbigu waa nuuraya shidhaanka la naarayaayo qalbigu waa nuurayaaye dibba loo noqonaya wala noqonaya dibba loo noqonaya wala noqonaya shidhaanka la naarayaayo qalbigu waa nuuraya shidhaanka la naarayaayo qalbigu waa nuurayaaye dibba loo noqonaya wala noqonaya dibba loo noqonaya wala noqonaya dalkiiba lagu noqonaya inaad caawo garabkeena taagan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaa malaynayaa dadkii meesha caawa nagula sugnaa hoteelkani inay saba kaceen intadna daawan doontana ay fadhigooda ka istaagi doonaan inta loo qabso baa ka daran malaayiinta waayinka hadba ma lagama hadli karabo saasaa la dhahay markaas aad baa u baxsanta aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waa tahay aaday u mahadsan yihiin maamooyinkii aadka u qiimaha badan fanaaniintii aan soo koobi karin arkayna qiimaha ay ka leeyihiin sida sharafta leh ee halkaan inoogu soo bandhigeen khiirada dhammaan dadka waxaa malaynayaa qurbaha jooga beriina waxamar iska saxaan doonaa haddii ay baraali noqon waa tahay wiisho fanaanka ugu horeeya ee nasiibka u yeelanaya ee nasiibka wanaagsan leh ee maanta inta masraxa lagu soo dhaweey ee la leeyahay heesqa weliba shacabkaaga bulshadaadii
SNTV كهذا هونيسو راديو مقدس سنة عصرنا أيتها سنة عصرنا أيتها لو كنت تبغى إستدادي تطبقنا أي جولان والله فنانين بدن هالكانوا كسبينهن يا وعلي runtii aad iyo aad maadaama ay maaragtay arrimo yar ay jiraan darteed waxaan jeclahay in aan maaragtay u yeero maadaama hadda Faadimo Cali Nagruuma ay naga tagtay oo ay fadhiisatay Maama Cali dhanka ragga maadaama uu ges ama marti asagana noogu yahay inta waxaan jeclahay inaan u yeero fanaankeena Cali Dhaanto علي سنة ظلمنا سنة ظلمنا هذا كان مهنئين أنا واحد كنت سلوين أنا مصري أنا بعض تلفزيون كان الصوماليات مرة بعد يعني كل ما يعني حاسحان ويش مرة بعد كل ما سلسلة في العالم هالكي لندن إن واتها ليش هو رسالة خالص marka koowaad waan idin mahadcelinayaa bahdis SNTV iyo Steve Ballard SNTV aan ku mahadcelinayaa marlabaad waxaan rabaa inaan salaamo fanaaniinteeda sharafta meesha isku yimid iyo shacabkeena oo meesha waan salaamayaa sharafay beekay maamulka Roomaanka halka kula kulmo waxay iga mudnayd inaan Roomo ku xigto fartuun iga mudnayd walaashay waxaan leeyahay waan ka cudur daaranayaa la ii yara raaleeho iyada iga mudnayd annaga waxaan u qaadanay maadaama ay hadda Maama Nagruum naga tagtay xagga ragga darteed waxaan ragga dumar wala ahaaba maan loorina aad iyo aad Cali sanadku waa sanad cusub sanadkii tegay 2017 muxuu kaaga tegay horta sanadka cusub sida hay'adda maamulku sheegtay horta maamadii aanu sidaabaan haye waayo ducadii aan ku ducaynayay horta maanta caaw ku ducaysay haye ducadii ahayd maalintii hore soo degay aan ku ducayay haye saaka qodobkii kale waraysan aan ku ducayay ahayd sanadka maanta inaga tagayna harantidiisa inaga duwo kasoo socda hadiisana Allah inaga duwo aamin aniguna hooyadii waa ka bartay haye marka ducadaas ay waan ku ducaysan oo ku ducaynaya wuxuu kala tagay wax xasuusantiisa horta mid khayr qabo ahaa sanadkii iga tegay hadda tegay waxyaalo badan baan ku xasuustaa haddaan idhaahdo waan koobina wax la soo koobi karma laakiin midda hadda ugu dambeysay waxaan ku xasuustaa aniga oo rabay xamar inaan 4 sano ka hor imaado inaan hadda soo dhamaanay inaan imaado ku xasuustaa horta oo waliba aan la socday hawadii Soomaaliya maalintii la soo wareejinay inaan imaaday oo xafladii munaasabadii qiimaha leh aan la imaaday waan ku xasuustaa waa dhowr 20 sano oo kadib waliba waxaan ku xasuusan doonaa dhaantadii aan sameeyay dhaantada iyo shiribka isku jira ahay waan ku xasuusan doonaa 2018 aad baad u mahadsantahay heesta ugu horeysa caaw hadal badan caaw waxaan maleynaa inuu noo furneen waa yahay waxaa la yidhaahdaa oo habar ari iyo humrihi haatan laga baxyo hogolbaha ka hortay halkii aan rabo hirka iyo caleenta nigsaaniyaya ari iyo humrihi haatan laga baxyo hogolbaha ka hortay halkii aan rabo hirka iyo caleenta nigsaaniyaya habar ari iyo humrihi haatan laga baxyo hogolbaha ka hortay halkii aan rabo hirka iyo caleenta nigsaaniyaya odayo nasiib lagu kala hariyo maamul hawl karaama jarahayo heegan waa sidaan u hormari lahay
odayo nasiib lagu kala hariyo maamul hawl karaama jarahayo eeganowa sidaan u hormari lahay soddon sana horte duulisti hawaade layskaga hadhe hadalkeed la dhigay hawl karba soo ceesho hiltaray bulshada soddon sana horte duulisti hawaade layskaga hadhe hadalkeed la dhigay hawl karba soo ceesho hiltaray bulshada habsankii ku dhacay duulisti hawaada haatan laga baxayo hagardama ma laha wixii hore qulubay bay hagaajiyeen habsankii ku dhacay duulisti hawaada haatan laga baxayo hagardama ma laha wixii hore qulubay bay hagaajiyeen hawshi guude garoonka laha qabtiro hakad maale diyaaradka heeganka maalin iyo habeen bay ka haadayaan hawshi guude garoonka laha qabtiro hakad maale diyaaradka heeganka maalin iyo habeen bay ka haadayaan Soomaaliya hagaagto halyeeyaa oo kacay wadadii habeenntay bay dhaar heleen horumariyo amniyo horseedeen bulshada Soomaaliya hagaagto halyeeyaa oo kacay wadadii habeenntay bay dhaar heleen horumariyo amniyo horseedeen bulshada عولاد laga baxayo hebla kala mariyo hebel malaha indisaha bulshadu waa haalo hormar la higsade huqdiyo عولاد laga baxayo hebla kala mariyo hebel malaha indisaha bulshadu waa haalo hormar la higsade hoygii nabada lagu hurda idan heegana qaranimo hante idaada hooyo waa hubal naftiyo maalba loo hura hoygii nabada lagu hurda idan heegana qaranimo hante idaada hooyo waa hubal hantiyo nafba loo hura
هالمر عدسي هلا waxaan jeclahay barnaamijka TV-ga rabnaa inuu ka baxo buuqa maaragtay hadalka yareeya fadlan waxaa waaye rikoorina noo socdo hadalkiina si toos u soo baxaya midda kale codsiga labaad meeshan waxaa waaye waxaan jeclaan lahayn fanaanka keliya maaragtay inuu soo istaago dhowr fanaan kale waa la soo istaagi karaan raalli ahaada maadaama aan rabno malaayiin badan oo Soomaaliyeed in ay guryahooda si raaxo leh ay barnaamijka ula socdaan aad baad mahadsantiin waxaan mahad celinayaa wariyaasha ka soo qaybgalay barnaamijkan dadweynaha ka soo qaybgalay intaba aad baad mahadsantiin Fortune Bremo soo waa u jeedaa laakiin maamadu waxay markaan ka bilaabay heesta ugu horeysay aan qaaday ama bilaabo waxaa lagu sameeyay gurigeeda waxaa ii sameeyay fanaanka weyne Cabdi Xasan Dige oo markaasna rumaha beebigeeda marka waayadan ugu horeysay oo qabyawan ay jiraysana qayb baan ka ahaa waayad kale iyadoo hayso abiilbaleeda aada qurux badan maamul rumo waa remodelkeyga waxaa lahahdaa dadka umadeyda oo mar walba aan jeceshahay marka maamada iyo Maryam Mursal iyo waa dadka aan jeclahay gaarna igu soo siiyey fanka Axmed Cali Cigaal maaragtay Xasan Aasabatar Jubba hadduu ilaahay ku leeyahay abwaano waaweyn Sangu waa tiro badnaay bagaag wala tiro badaya maasha Allah fanaaniinta musri aniga waxaa waa ficida ay daadaysay soo jidkeeda baan maray I love you so much maalmeen aan loo salaamay sidoo kaleete wariyaheena joogtada Calinuula waa dadka iyadoo lagu soo guujiyo istijira marka caawi waxa waaye maasha Allah Bremo sidaa kugu aqoon kugu kasahayay bal caawa halkan aniga markaa gabadha yartaa beeleysa xoogaa ninday ismasal ati xoogaa yar waa iska yar heesta ay ku soo talgal waxaa la yidhahdaa haddaan helay ninka raadin jira
haddaan aanini jecel haddaan helayo helay cabdilaanto marka ugu horeysa sanadkan saxay waxaan kugu soo dhaweynayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed dabaaldegii sanadka 2018 ayadoo sanadkii 2017 maaragtay aan galbinay hadda waxaan u wada taaganahay soo dhaweyntii halka aan ku sugannahay waa xarunta dalka Soomaaliya Muqdisho adiga dad badan waxay kugu yaqaanaan dhaantada adoo ka dhaanteynayso magaalada Muqdisho waxaad tahay dadkii ugu horreeyay ee dhaantay magaalada Muqdisho inta aan haddaan qaldanan keenay oo ka dhaantiyey bal adiga iyo cabdi heelo oo aan jeclahay asagana in dhowaan maaragtay intaan soo saajin doono ilaahay tukaan noqdo caawa maadaama dabaaldegi uu yahay sanadka 2018 maxaad ugu talagashay caawa hees ahaan iyo farxad barnaamijkan inaan nagala qayb qaadato marka hore aad baan u faraxsanahay sanadkan wuxuu noqon doonaa sanadkii ugu farxadda badnaa maadaama fanaaniin waaweyn oo maqli jiray TV ka arki jiray aan caawa si live uga hortaaganahay wuxuu noqon doonaa sanadkii farxadda dhammaan fanaaniinta halka fadhi kulliga waa salaamaya shacabka meesha fadhiyo iyo wahda TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa salaamaya waan faraxsanahay keliya inaan dhaantay waan intuu soo istaagay su-aalaha fara badan aad uga jawaabi karaa waa mahadsan tahay hanaqaadkii horeed hirkaygu dartay anigoon heel la tumin miyaan hooyaan karaa hanaqaadkii horeed hirkaygu dartay anigoon heel la tumin miyaan hooyaan karaa higil madow sida gooray haldha hab wanaagay hawaasan ku kala helaa tinta higil madow sida gooray haldha hab wanaagay hawaasan ku kala helaa soo kama hari kari kay unoy wiye lawada tunne wanku hayso kama hari kari kay unoy wiye lawada tunne sidoogo sharooda mahana biyal kadhow noo hidiya dhaqankaagaan ka helay sidoogo sharooda mahana biyal kadhow noo hidiya dhaqankaagaan ka helay nin
walbaba qofkuu hela kama hadhay ku hiloobe naftaydu miyay ka hadhaa nin walbaba qofkuu hela kama hadhay ku hiloobe naftaydu miyay ka hadhaa mar horaanka helo aan ku soo haybiye hawla Soomaaliyeed baad u tahay horyaa mar horaanka helo aan ku soo haybiye hawla Soomaaliyeed baad u tahay horyaa ibsado kama harikay kalay hunoo yirwiye lawada tunay wanku ibsado kama harikay kalay hunoo yirwiye lawada tunay wanku ibsado kama harikay kalay hunoo yirwiye lawada tunay wanku ibsado kama harikay kalay hunoo yirwiye lawada tunay kalay hunoo yirwiye lawada tunay وجهك حمدي برامج كيلو وحمر يا مارتي بدنك وحال عوا ودبرتنا سنة كلابد كون سديد تمانك أمين وسروتينا سنة كلابد كون تمانك تبغى هالك عن كوسكنا هاي وهوتيل كوين عالمية هوتيل دلفين دولفينز وعن هذا هوتيل دولفينز وفي على حتة دمشق كيراحة الهوتيل الليدو أيوة يا هالكاني عوا inoo fududeeyay in barnaamijkan ku qabsano halkan waxaad ka heli kartaa cunooyin kala duwan iyo jiif raaxa leh intaba iyo meelo aad damaashaadka iyo raaxada xamdaay aad u tegi karto hamugaanina markastoo aad soo gaartaan magaalada muqdisho ayadoo ay fanaaniintu caawa farbadan yihiin qaar ka mid ah gobolladii waa bariga qaranka Soomaaliyeed halbowlaha u ahaa ummadda Soomaaliyeed baraarujintana qayb ka ah mid ka mid ah gabdhaha runtii sida aadka ah isha loogu hayo oo ay dadkuna wada jecel yihiin ila soo dhaweeya yaa kale ila soo dhaweeya caasho kiim oo ka mid ah fanaaniinta gobollada waabari ee qaranka Soomaaliyeed عاشو سنة عاشو عاوة وحقيقة مغدير كرو آدوين مدام السنة كان سنة كعصبايا هاي وأنا دبرتك نسوتير من كيهوري أنت عن وجود من عاوة واحد وصل ترك شيء ومدة الصوماليات هو عاوة بوسكن هوتيل كان بروح بدن دالفرنس هوتيل وأنا عاوة برنامج كان بروح بدن كو قوانينا iyo kuwa caalamka naga daawanaya intaan aan u gudbin waxaan jeclaan lahaa maadaama aad magaalada Muqdisho muddo badan joogtay aniga adigana aan isboogana waxaan filayaa sanad in ku dhawaad ah bal waxaad iga warantaa dad badan waxay kugu maaragtay xasuustaan heeso badan oo baraarujina caawa ma isleedahay dhanka jacaylka maadaama ay farxad tahay ayaan u gudbi doonaa haye haye murugada gadaal caawa noga dheere waxaan jecelnahay maadaama oo sanad cusub uu yahay in farxadda
aan wada farxano dadkan quruxda badan oo muddo soo diyaar garoobay shacniga iyo quruxda ka muuqda maamulka Ruuma iyo maamulka Xasan iyo maaragtay mas'uuliyiinta kale inta joogaan ay maaragtay farxad ka muuqdilo ay qabaan xasuusin waxay tagay tiisma male bal farxadda waxay ku xasuusta farxadda haddii hada soo qabo sanadkii tagay quruxda Muqdisho hay sidii ku kacayso heer hay taas wax qurux badan baa jiro la sheegay maya taas waa la garan cool marka labaad caawa farxadeeda lama soo koobi karo hay maamulka Ruuma caawa aad u faraxsanahay inaan weliba Muqdisho ku arko 2000 ayuu ugu dambeysay shirka Caatay heeska caawa inta ka qaaday dib baa loo noqonayaa وارسل حسوس إليه هست عاو أدو ترجشي داورياشا مرتي شرفت عاو أنت كسرن هذه ما أردت أن وجودنا نوصلت وهست هست عايلة واي وصوتها كل ذاك هي كنحب حسن دور وحب الحجم مركا قرن نحب حلو baryahan boholyo aan qabo inkastoo bogiyo badan kuba yuro inkastoo baryahan boholyo aan qabo inkastoo bogiyo badan kuba yuro bandhigo boogtayda qalan cidna uma bandhigo inkastoo budiyo beerkuy balbalo boogtayda qalan cidna uma bandhigo boogtayda qalan cidna uma bandhigo sirabahin kushimaha xidha laysoo baro waan baahanahay baktiga umacno sirabahin kushimaha xidha laysoo baro waan baahanahay baktiga umacno baryahan budulan ku jiro inkastoo busiyo boorku igu dhaco
intahan budulan ku jiro inkastoo busiyo boorku igu dhaco inkastoo bariyo muuqu isbedelo baashayda maran cidna uma bashiro baashayda maran cidna uma bashiro inkastoo bariyo muuqu isbedelo baashayda maran cidna uma bashiro baashayda maran cidna uma bashiro sirabahin ishimaha xidha laysoo baro oo aan baahanahay baktiga umacno oo aan baahanahay baktiga umacno sirabahin ishimaha xidha laysoo baro oo aan baahanahay